dugsiyada ama iskuulada waxaad ku dhigata taariikh iyo dhacdooyin laakiin maaha taariikh oo dhan waxaa jira taariikh badan oo aadan ku dhigan iskuulka kuwa xiisa gaara leh tusaale ma ogtahay in kale bar dadweynaha caalamka ay daawadeen ciyaarihii koobka adduunka ee la qabtay sanadii 2010 iyo 2014 waad la fajicaysa inta waxyaalood ee taariikhda adduunka ee ka daahsoon waxaan jeclaystay inaan halkani kugu soo bandhigo qaar ka mid ah xaqiiqooyinka taariikhda ee ka daahsoon iskoolka ama dugsiyadana aan lagugu barin kusoo dhawaada muuqaalka oo wax badan aad ka faa'iidi doonto boqoradii burcadka jiinshii waxay eedaweynay jirkada ka ganacsata falkan ayay ku jiri jirtay ilaa ay sehleen oo gursaday taliyaha ciidamada caalamka cas kuwa oo ahaa burcadka arimiya qayba ka mida biyaha dalka China halkii uu arki lahaa inay tahay xaaskiisa waxa uu tixgeliyay qof la siman ilaa ay ka noqotay sargaal firfircoon oo burcad badeeda ka tirsan jiinshii ayaa durbadiiba ka heshay marxabeen burcad badeeda kale iyada taabacsanaa weliba si weyn ka gadaal markii ninkeedii dhintay waxay noqotay kabtanka maraakiibta falka burcad badeednimada ay faraha kula waxay soo rogtay sharciyaan shaxeed adag waxayna amartay in kuwa jabiya xeerka ay helaan ciqaab ah dil qof kasta oo hoggaansami waaya amarada kuwa ka sarreeya waxayna ahayd mid ka mid ah haweenkii ugu awoodda badnaa ee soo mara taariikhda dunida qarnigii 19 taasi oo hoggaaminaysay ciidan ka badan 40 kun oo burcadbadeed ah iyo 300 oo markab waxayna uga bacdhigaysay quwadihii waaweynaa xilligaa jiray sida ingiriiska iyo Boortaqiiska sidoo kale waxay qalqalgelin jireen kooxda ay hoggaaminayso ee ciidamada caalamka cas dhammaan maraakiibta maraya biyaha Shiinaha waxayna qabsatay kana talinaysay tuulooyin dhaca xeebaha Shiina waxayna dadka ka qaadan jirtay canshuur ugu dambeyntii waxay ku dhimatay 1844 magaalada Moscow ee ka tirsan Shiinaha ninka kaliye ka badbaadey labadii nuclear ee lagu dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki Titomo Yamakichi wuxuu ahaa injineer 29 jir ah wuxuuna ambabaxay 3 bilood oo safar shaqo ah kuna tagay Hiroshima bishii Agoosto 1945 markii saacadu ku beegneed 2:15 daqiiqo waxa uu maqlay dhawaaq diyaaradeed isla markii uu cirka eegay waxa uu arkay diyaarad American ah oo nooceedu yahay B-29 ama B-29 oo laga soo ganaya shay yar oo ku xiran yahay baarashuud dabadeedna waxaa hal mar cirka isqabsaday iftiin weyn oo markii dambe uu ku tilmaamay inuu ahaa iftiin hillaac oo kale ah waa uuna booday waxa uuna ku soo dhacay beer baradho waxa uu ka badbaaday qaraxii waxa uuna awooday inuu safar ka gaxle ku maro magaalada oo burbursan ilaa uu tagay xarunta tareenka waxa uuna yiri markii aan indhihiga furay wax walba way madoobayeen wax waan arki waayay waxay u ekaayeen filim bilow ah ka hor intuu sawirka bilaaban waxaan waayay wax cod ah Agoosto 7 waxa uu raacay tareen soconaya hal habeen oo u socda magaalada Nagasaki subaxnimadii Agoosto 9 waxa uu la joogay qaar ka mid ah asxaabtiisa dhismaha xafiiseed markuu ay kala firdhadeen eerkana waxa hal mar isqabsaday iftiin weyn Yamakichi waxa uu ka soo baxay burburka isagoo kaliya dhaawacyo fudud qaba sidaasina waxa uu ku noqday dowladda Japan oo qosatay inuu yahay qofka kaliya ee ka badbaaday labadii qarax ee nuclear-ka ee lagu dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki qunbuladaha nuclear-ka ee lagu dhuftay magaalooyinkan ayaa gabagabo u noqday dagaalkii labaad ee adduunka 1952 Albert Einstein ayaa diiday inuu noqdo madaxweynaha labaad ee maamulka Israa'iil Einstein saaxiibkiis Chaim Weizmann ayaa ahaa madaxweynihii koowaad ee maamulka Israa'iil sanadii 1949 ilaa 1952 waxaana ka codsaday saaxiibkiis Einstein in uu bedelo Einstein waa Yahuudi asal ahaan ka soo jeeda Jarmalka laakiin dhalasho Mareykan haysta waxa uu aaminsanaa muhiimadda ay leedahay in Carabta iyo Israa'iil iskaashi dhexmaro taasi uu arkay saaxiibkiis inuu yahay ninka ugu weyn ee Yahuudda nool kuna haboonaya xilkan isagoo u ballan qaaday in sayniskiisa inaan ka mashquulinayn madaxtinimada laakiin sidaas oo ay tahay waa uu diiday dagaalkii ugu yaraa ee la diiwaan geliyay wuxuu ahaa dagaalkii Angola Zanzibar ee 1896 sanadii 1896 Hamdoubi oo ahaa sargaalkii Ingiriiska ay ka talinayay Zanzibar ayaa u dhintay arrimo laga shakaysan yahay dadku waxay aaminsanayeen in adeerkiisa suldaanka Khalid bin uu sameeyay xaqiiqda ayaa caddaatay ka gadaal markii bin barqash uu isla markii ku dhawaaqay inuu yahay taliye iyadoo aan ogolaansho laga helin Ingiriiska oo maamula qasriga Ingiriiska waxa uu ka dalbaday bin barqash inuu hakiyo arrinka uu wado markii uu diiday waxay bilaabeen inay isku soo aruuriyaan doomaya ciidamo ku sugan degada u dhow ugu dambeyntii saacadu markay ahayd 9kii bishii Agoosto 26 ayay ku dhawaaqeen dagaal waxayna rasaas ku fureen guriga 2 daqiiqo gudahood boqortooyada Ingiriiska waxay burburiyeen madaaficdii bin barqash gurigii weynaa ee alwaaxda ahaana waxa uu bilaabay inuu ku burburo
ciidamadii gudaha ku sugnaa halka suldaankana uu ka baxay albaabka dambe isagoo baxsad ah. markii ay 9:40 daqiiqo dagaalkii waa uu dhammaaday. dagaalkii waxa uu ku dhammaaday 38 daqiiqo gudahood, waxaana diiwaanka u gashay inuu ahaa dagaalkii ugu waqtiga gaabnaa taariikhda dagaalada caalamka. dayaxa malaha cufis jiidad. sidaynu ogsoonahay dhulka waxa uu leeyahay cufis jiidad oo wax walba kor loo tuuro way soo noqdaan, laakiin taa cagsigeeda markii dayaxa la tuuro ma jiro cufis jiidad. waxaa la arkaa inta badan dadka duurtaga dayaxa oo taagan, maxaa yeele waxay ku jiraan xaalad aynan walwal ka qabin inay soo dhacaan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaan filayaa in wax badani oo cusub aad ka kororsatay. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. wabilaahi tawfiiq.